Asalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa aniga Cabdisanaa Xasan. Muuqaalkan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa wariyaha iyo youtuberka weyn ee Maxamed Qadar Ibraahim Daahir oo ah youtuber sport midka ugu weyn Soomaaliya oo dhan. Haddaba daawad intaanan muuqaal guda gelin لعمضو سبسكرايب كنا صار قيدنا قبل كل وجري شير تيجي ولا تمسكوا بها ساعة كل عيار وجعل ولا رامش كم قرسمها barnaamijkan aan ugu magac daray shaqsi caan ah iyo sheekadiisa waxaan kusoo qaadan doonaa youtuberada Soomaaliya ugu saameynta badan. Haddaba hadduu jiro youtuber aad jeclaan lahayd inaad sheekadiisa nololeed wax badan ka ogaato igula wadaag commentiga mahadsan. Haddaba daawada muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waa kuma Maxamed Qadar, shaqadan ciyaaraha siduu kusoo bilaabay, maxaase ka dhigay wariye sports midka loogu jecel yahay guud ahaan Soomaaliya oo idin dhalinyaraduna u xiiseeyaan muuqaaladiisa. Laakiin waxaa jira sir ka dambeysa guusha oo dhan taasoo cid waliba ay samayn karto. Maxayse tahay sirta? Muuqaalkeena ayaan ku ogaan doonaa. Marka hore, Maxamed Qadar Ibraahim Daahir wuxuu ku dhashay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, wuxuuna kasoo jeedaa qoys xoolo dhaqato iyo beeraley ah. Waana wax uu ku faano, waana wax lagu faano run ahaantii. waxaan ku dhashay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar hawayaan arday jiray adduunyo Jowhar ka jooga akhir mijan waa halka heeso magaalka ku joogna runtii hal heeskaas aan leenahay runtii magaaladaas baan ku dhashay ku soo barbaaray weligay iyaan soo joogay waqti ugu badnaa marka laga reebo inko hadda dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay guddi shaqadayda ay noqotay laakiin waa halkan ku dhashay halkaas waxbarashada ku soo dhameeyay runtii dugsiga sare iyo dacaba juud ahaanba marka waa nin meesha ka yimaado aan runtii oo dadkiisana kuna faanaya inuu ka soo jeedo mataqaana family xoolo dhaqato ah iyo family beeraley ah runtii yaa waa ku faana inta badan moogtaa marka qaar Dhalinyaronimadiisa wuxuu ahaa shaqsi kusoo koray taageerada sportska iyo ciyaaridda kubadda cagta. Xilligaas ay aad u adkeyd inaad ciyaaro daawato amaba wararka ciyaaraha aad la socoto. Laakiin akhrinta jaraa'idada ciyaaraha iyo inuu raadiyo ka dhageysto ma ahayn, ma jirin meel kaloo sida haddoo kale wararka ciyaaraha looga heli karo. goolkii labaad Cristiano Ronaldo wadariya Ronaldo wadariya Ronaldo wadariya Ronaldo الله نكان كبير نكان وكبير نكان وواحد كله عجوز بدل بي سمينيان تفرتني سديد دقو عيارته جولكي لباد عاوة كريستيانو ويانا دا جول كوداليي وليغا حبقين هدف هيستا عجوزي رونالدو وليغا حبقين كريستيانو كاعة أيو لا يا كريستيانو رونالدو وكان جولكي لباد عاوة عيارته وصل لي كانسيلو رونالدو والله كيف هربان laakiin maadaama uu jeclaa inuu noqdo wariye sports iskama hor istaagin inuu hamigiisa ka dhabeeyo oo wuxuu bilaabay inuu idaacadaha wariye sports ka noqdo. Muddo dheer kadib wuxuu ka shaqo bilaabay idaacadda Jowhar. Laakiin wariyaasha markay shaqada warinimo ku cusub yihiin waxay shaqada kasoo bilaabaan hoos, sida inay ogeysiisyada iyo baafinta iyo waxyaabaha yaryarka ah loo dhiibo. Laakiin nasiib wanaag isaga wuxuu kaga duwanaa waa inuu maalintii ugu horeysay loo dhiibay wararka ciyaaraha barnaamij toos live ah, taasoo muujinaysa in laga filanayay inuu kasoo baxayo shaqada loo dhiibay balse uu uga soo baxay sidii la rabay. waxbarashada ugu horeeya idaacadda marka qofka waxa looga bilaabaa dhageysiis iyo baafin iyo waxyaabaha yaryarka ah kuwa looga soo bilaabo waana muhiim laakiin markii ugu horeysay idaacad aan fariisto waxyaabahaas kan bilaabo waxaan ka bilaabay wali barnaamij toos oo live ah agaasimihii idaacadda beriga ilaa oo nin ma taqaan way wayaane sid xaga afrax baa yiraahdo runtii yaa wuxuu ugu yiri barnaamijka waadna wareeraysanayay bal ciyaarahan balgal maanta waana barnaamijku live ah dadka mugta xataa markii waa qofka mugtahay waxaa jira shock microphone ay jira runtii markuu wariye ku cusub yahay oo wixii uu ka qarqarayo laakiin waana laga duubi jiray xataa aniga markii ugu horeysay ciyaaran akhri live aan u akhriyo soddon daqiiqo daldalmay ciyaarihii mobilkii ku soo diyaarsaday waxaan ku dhex jiray wax minadeeda ah waxaan jeclaa laakiin weligay wixii ugu horeeyay aan ku bilaabay ciyaar ahayd live aan ku galay kadib wuxuu u wareegay magaalada Muqdisho taasoo sare u qaaday heerka warinimadiisa. kani waa kulanka ugu weyn adduunku caawa waxaa ciyaaraya Barca Real iyadoo ciyaartoy ka dhacayso Santiago Bernabeu waana habeenkii koowaad ee ciyaarta tan maalinba maalinta ka dambeysa wuxuu noqonayay wariyaha tibintiisa ciyaareed aad loo xiiseeyo. Walow ay jireen wariyaal badan oo xilliga ciyaaraha tabin jiray balse asaga wuxuu ahaa mid kasoo ifbaxaya dhammaan wariyaasha kale. Maxamed Qadar kaliya kuma ekaan inuu idaacadda u shaqeeyo balse sidoo kale wuxuu noqday
youtuber oo weliba wuxuu noqday shaqsi wariye sports intii ugu horeeyay ee 1 million subscribe gaaray. ugu dambeyntii waynu gaarnay 1 million ugu dambeyntii kabtii waanu gashan runtii wax weeyaan ilaahay baa mahad iska leh waxayna midaan ku timaaday idinkoo inoo cimaamaday marka habeenku waa kaayo master Ahmed Futur Ahmedi waa lagu soo tuuray ugu dambeyntii 1 million ayaanu galnay. sidoo kale maanta waa midka lagu kalsooni badan yahay arrimaha sportska. Waxa ka dhigayna waa dadaal iyo juhdi uu asaga la yimaaday. Waxa ka dhigay Maxamed Qadar wariye ama youtuber sports midka ugu fiican waa inuu maalin kasta uu 3 muuqaal soo dhigo. wax aysan samayn karin youtuberada kale. Weliba marka laga hadlayo ciyaaro waa shaqo run ahaantii aad u adag in maalin kasta aad 3 muuqaal oo sports ka hadlaya soo dhigto. isagoo soo dhiga subaxdii 4 saac ilaa 5 saac inta u dhaxaysa iyo barnaamijkiisa labaad galabnimadii 5 galabnimo ilaa maqribadii iyo weliba markay ciyaaraha dhamaadaan 6 saac weliba marar qaar ay ku gaaraan 7 saac habeenimo. waxaan soo xasuustay hadal uu Maxamed Qadar uu yiraahday legend unbaa legend kale wuxuu yahay u qira ama waa cimaamad ku tuuran. mar la weydiiyay Asad Xaaji waa ka youtuber kaliya ee adiga ka sareeya ayaa wuxuu ku jawaabay waa Maxamed Qadar. anagoo og in Asad Xaaji uu yahay number 1 Somali youtuber ahna shaqsigii ugu horeeyay ee 2 million subscribe YouTube gaara. youtuber isleedahay uu ka fiican yahay adiga ahaantaada malar oo dadka fikradooda adiga ahaantaada fikirkaaga ma jira youtuber isleedahay uu ka fiican yahay youtuber uu iga fiican yahay shaqsi ahaan sax waa jira ma sheegi kartaa mise waxaa dhihi karaa hal qof waaye waana Maxamed Qadar. Maxamed Qadar waa sida adiga aaminsanahay tumaba arkaba runtii niyo inaan yacni wax ahay ama aan meel sare joogo ama aan youtuber fiican aan ahay ama wariye fiican isuma arkay marka marka wax weeyaan dadka sululiga badan iyagu cumad iskuma tuuraan marka saas daraadeed saaxiibkay su'aal baad ku gudisay anigu cumad igu tuuray anna waxaan leeyahay isaga cumad igu tuurayaayo adiga ayaa number 1 kabsay gelin marka record. walow Maxamed Qadar laga subscribe badan yahay mooyee aan laga dadaal badnayn halka Asad Xaaji uu maalin kasta muuqaal soo dhigo laakiin Maxamed Qadar uu maalin kasta 3 muuqaal soo dhigo ma la dhihi karaa waxa Asad Xaaji uu sheegayo waa run. haddaba daawade adiga ayaan kuu daynayaa jawaabta. ugu dambeyn maanta Maxamed Qadar waa number 1 wariye sports sidoo kale waa mid ka mid ah top 5 youtubers Soomaaliya. haddaba daawade maxay tahay sirta ka dambeysa guusha Maxamed Qadar? haddaba haddaan su-aashan asaga aan weydiiyo Maxamed Qadar maxay tahay sirta ka dambeysa guushaada? anigoo dhalinyarada waxaan leeyahay asxaabay haddaad ii arkaysa maanta wax yar inaan guulaysahay oo labada qof Maxamed Qadar ku xiriir isleedahay ood leedahay arkaas ilaahay waa nimcad leedahay nimcadan haysto maanta waxay ka dambeysaa in Ilaahay ku tirsanaado. guush marka dhalinyarada waxaan leeyahay guush meesha laga raadinayo kuma jirtee waa dadaalaynaa laakiin ha lagu kaabo Ilaahay rabbi wuxuu diintiisa ha lagu kaabo. waxaan filayaa inaad heshay sirta ka dambeysa guusha Maxamed Qadar aadna samayn doonto. haddaba daawade muuqaalkeena xiisaha badnaa aan kaga hadlaynay sheekada Maxamed Qadar intaan ayaan kusoo koobayaa. intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal lamida waa anigoo ah Cabdisaan Xasan waxaan idin leeyahay nabad ahaado.